الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وبعد، waxaynu isu sheegi doonaa in sha allahu 10 maaxiyaatin lidunuub, 10 arrimood oo ilaahay uu ku masaxo dembiyada. waayo waxaba inoogu daranba oo culays inagu haya, aadna aynuga warwarsannahay dembigeenna. waman yakfiru dunuuba ila allah, dembigana ilaahay unbaa dhaafa. marka ilaahayna wuu inoo tilmaamo, sharcigiisuu inoogu tilmaamay dembiga iyo gafki iyo godobtaynu ku jirno siduu inooga salabaynayo oo inooga tirtirayo. marka xikmado fara badan oo nebi maxamed aynu ka dhaxalnay sala allahu calayhi wasalam ayaa qaar ka mida aynu ka soo qaadan doonaa. waxaa ka mida in tasbiixda aynu ogaano. tasbiixda arrimahan aynu xusi doonaa dadkao dhan bay u sahlan yihin, waayeelka iyo qofka wax akhriyi kara iyo dhallinyarada intaba. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi qofka yidhaahdo subxaana allahi wa bixamdihi fii yowmin 100 mara, qofka 100 jeer yidhaahdo subxaana allah maalin keliya, xudat khataayaahu walow kaanat midla zabadi اlbaxr, gafafkiisaa laga daadinaya xataa hadday xumbada badda la eg tahay. 100 jeer waa intaa kooban. subxaana allahi wa bixamdi, subxaana allahi wa bixamdi, subxaana allahi wa bixamdi. qof kaliba odhan karaa. badda xumbadeeda hadday la egtay arrin cajiiba weeye. dadku waxay ku kala dheeraynayaanuun siday fursaddan uga faa'iidaystaan. mar labaad nebigu wuxuu tilmaamay dembiyada inuu ilaahay naga dhaafayo istikfaarta, al-istikfaar, inagoo ilaahay weydiisana dembiga inuu inaga dhaafo. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku leeyahay xadiid kaloo isaguna saxiixa: man qaala astakfiru allaha aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh, intaa qofka idhaa aan akhriyey, ilaahay baan weydiisanayaa inuu dembiga iga dhaafo, ilaahay noloshiisu ay daa'imka ahaydeen geeri ku imanaynin, waanaan u toobad keenayaa. qofka intaa yidhaahda waxaa laga dhaafayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dembigiisa, xataa wain kaana fara min azaxf, xataa dagaalkii gaalada hadduu ka cararay. oo dembiyada waaweyn waxaa ku jiray maalinta gaalada lays helo inuu qofku baqdo. marka iyadana istikfaartana waynu ku celcelinaynaa oo wardigeenaynu ku daraynaa siduu nebi maxamedba ugu dari jiray sala allahu calayhi wasalam. wakadalika namxu dunuuba bidikri illaahi subxaanah, dembiga waxaynu ku tirtiraynaa inaynu badinno ilaahay xuskiisa. oo nebigu waxau ihi qofka idhaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, laa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah. intaasunbuu qofku yihi laa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah. intaa hadduu qofku idhaahdo waxaa laga dhaafayaa dembiyadiisa. wain kaanat midla zabad ilbaxr, xumbada baddaba ha la egaado dembigaas. hadda waxa bushaaraystaba socdee dembi dhaafku meelahan uu iska yaalyaalaaye, ibliis baa waxa uu inoo diidan yahay iyo shaydaan inaynu ka faa'iidaysanno. wakadalika namxu dunuub bidikri bacda aطacaam, xuskaynu odhanayno markaynu wax cunno kadib, isagana ilaahay wuu inaga dhaafayaa dembiga. wax cajiiba weeye inuu ilaahay isugu kaa daro gaajadii uu kaa reebay iyo dembigii uu kaa reebay. laakiin taa waxa garan kara qofka aqoonteeda leh, ilaahayna waafajiyo. rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam qofka markuu wax cuno yidhaahda alxamdu lilaahi aladii acamanii hada aطacaam warasaqaniihi min gayri xawlin walaa quwati minii qufira lahu maa taqadama min denbi. qofka ilaahay u mahadiya raashinkii, wuxuu cunay wuxuu cabay buu ilaahay u mahadiyey. ilaahay baa mahadle igu arsaaqay ee i siiyey raashin ka wanaagsana macaan, anigoon awoodba u lahayn. qofku hadduu intaa yidhaahdo dee calafkiisiina waa cunay, dembigiisiina waa laga dhaafay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. laakiin dikrigaasunbaa kaa xiga inaad ilaahay mahadiso subxaana wa tacaala.